gabadhan sida aad uga taqaanaanba waxa la dhahaa Xabsa Queen waxay caan ka tahay social media waxaa horey u qabay Rashka Boy oo ahaa qofka ay dadka oo dhan ku wada barteen qabniin kadib waa uu furay Rashka Boy kala tagoodii kadib waxay Xabsa Queen noqotay gabar ay dadku si saa'id ay ula yaabaan ayadoo markii horena ahayd gabar ay dadku si saa'id ay u jecel yihiin sababaha ay dadka ula yaabeen waxaa kamid ahayd in ay Xabsa Queen ay wiil walba tira xiriir baa naga dhaxeeyo fiidiyooyin ay maalmo soo duubaan halkaan ay ku kala tagaan waxayna dadka ay leeyihiin maxay sidani u sameynaysaa Xabsa Queen sida loo furay waa ay waalata iyo waxyaabo noocaas ah ayadoo dhinaca kalena Rashka Boy oo ahaa ex ninkii hore ee Xabsa Queen oo markii ay Xabsa Queen kala tageen kadib gabar Asma Liira ay markaasi isfahmeen isguursadeen ilaa iyo haddana ay wada joogaan markaa Xabsa Queen balse waxay noqotay qof si wareersan camal u dhaqmayso oo marba dhinac darbiyada ku tumanayso si walba ay ahaataba Xabsa Queen ayaana hadalkaasi u joojin ayadoo sida ay doontana sameynayso waxayna Xabsa Queen markii hore ahayd gabar fiidiyooyada ay duubto ama waxyaabaha ay duubayso marka ay duubayso ka xishota kaamirada Rashka Boy markii uu qabay balse Rashka Boy markii uu furay Xabsa Queen waxay isku bedeshay si saa'ida waana sababaha ay dadka ula yaabayeen Xabsa Queen dhinaca kalena Xabsa Queen waxa ay noqotay gabar ganacsata ah waxayna Xabsa Queen ka ganacsataa dharka noocyadiisa kala duwan ayadoo markaasi si qurux badan u libisata waxa ayna markaasi Xabsa Queen ay kamid noqotay ganacsatada Soomaaliyeed ayadoona markaasi dukaan weyn Nairobi ka dhex furatay dharka noocyadiisa kala duwan ayayna Xabsa Queen soo saartaa waxayna gaartay horumar la taaban karo oo qof walba ama gabar walba ay ku haminayso Xabsa Queen waxa mucaarad ku noqdaan iraahday kala bar dadka ayadoona ay dadka kala kulantay dhaga hadal iyo aflagaada toos ah waxana Xabso yaab iyo makaa ku noqday sida kadiska leh ay dadku mar quraata ay u wada naceen ayadoo saas ay tahana iska joojin weydii sababaha keentay in qalad ay u fahmaan dadka waxaana xusid mudan in markii uu furay Rashka Boy Xabsa Queen ay dadka oo dhan la safteen Xabso oo ay qalad weyn dusha ka saareen Rashka Boy waxayna si saa'id uga xumaadeen furiinka Xabsa Queen iyo sidoo kale Rashka Boy ayadoo ay mudana ay hadal hayeen sababaha ay isku fureen ayadoo dhinac walba qof walba dhinac ay u qaadaysay balse shalay maanta ma aha Xabsa ayaana dadku waxay u arkeen kala taga Rashka Boy kadib in ay siday doonto u dhaqmayso inkastoo ay jireen dadka qaar oo weli Xabso taageersan kuna difaacay in Xabso ay tahay qof ayada un la xumeeyo sida darteedna u sameynayso waxyaabaha ku jabinaya ama ragba ka dambaysa ay ku jabinayso waxaana maxaa la yiraahdaa ay kala hareen ama jira wiil ay kala hareen oo ragaasi kamid ahaa oo si daacad u jeclaa oo ay mar dhow ay kala hareen iyadoo markaasi ugu dambeyn la isku diray wiilkii daacadda u ahaa Xabso